xaflad si ballaaran loo soo agaasimay oo habeenkii xalay ka dhacday gudaha magaalada Borama ayaa beel ka mid ah beelaha dega gobolada Awdal Salal iyo Gabiley waxay taageero mug iyo miisaan loogu muujisay xisbiga isbedel doonka ah ee Mucaaradka iyagoo sheegayna inay door bidaan inay ku abtirsadaan isbedelka ay shacabka Soomaaliland oo ma yihiin waa siday hadalka u dhigaan taageeradooda mug iyo miisaan kale ay siinayaan xisbiga Mucaaradka Wadani odayaasha aqoonyahanka dhalinyarada haweenka iyo waxgaradka beeshan codkeyga iyo cududeeda siisay xisbi mucaaradka Wadani oo muddooyinkii ugu dambeeyay hoolasha hoteelada Borama ay hayeen ku sida hirarka ay iskaga soo daba dhacayaan xafladaha uu qabanayo shacabka door biday inay isbedelka xisbigaasi bulshada ugu baaqay door bidaan waxaan u baahanahay wadankeenu inuu nagu filan yahay xisbi cadaalad ku dhaqaan u baahanahay haddaba madaxda ballan qaaday maanta inay cadaalad ku dhaqaan waa Wadani madaxdeeda waa Cabdiraxmaan iyo Maxamed codka inaad siisaan xisbiga Wadani dhammaantiin soo kuma ballansanine ujeedadu waxa weeye inaanu taageerada beesha iyo cududoodii aanu ku midayno oo halkan caaw kugu muujino inaanu wax madmadow ku jirin oo beeshu ay isku raacsan tahay in ay xisbiga Wadani u codayso madaxweyne waxaan ku ballan qaadaynaa haddaan nahay dhalinyarada beelweynta Maxamuud Yoonis kuna aftirsanaysa magaca weyn ee Makaahil waxaan habeen iyo dharaar aan diyaar u nahay inaan ku soo jeedno ay u noqoto nimba taabkii togay kaamal codkeena halka inoogu wada shuba dabaysha waad arkaysaan waxaan leeyahay Wadani bay ku hortay heegadu Wadani bay ku hortay heegadu ninna haboogaadin waxaynu ognahay sixir bararka iyo waxa jira waxa doonaynaa isbedel weeyaan waxaynu ku bedelaynaa isbedelka ku keenaynaa waxa weeyaan codkeena oo Wadani siino aynoo bariyee weersani aynoo baxdo waqtigu ayna saaciday walaalaha lagu noqdo wanaaga aan wada falle codkiina Wadani u hura sidaas oo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga Mucaaradka Wadani oo warkacaya gudoomiye ku-xigeenka koobaad ayaa iyaguna madashii xafladaasi ay ka socotay sidan tan hadallada iskaga daba qaatay inay tuqaantii ugu dambeysay kulmiyo ka qayb galaso soo dhaweyntii kor u qaadintii Wadani waxaan leenahay anaga maanta dal nabada iyo dad nabada mid la nagu wareejinayeen dal burbursan oo halkii cigaal ka soo bilaabay baan ka soo bilaabaynaa hadulkii uu cadaaday wuxuu u moobay yahay codkiina kaliya dulqaad baa lagu ogyahay Wadani sidaa bay noo ballanaya farteena yaa badalayna yaa dooranayna inaynu maalinta teebniin oo fara aynu u codayno xisbiga Wadani waayay cod ma u codayna maalintaas saacadooda November Wadani madalu ma kuleenahay madalu ugu dambeyn ambassador musharax Maxamed Ali aw Abdi oo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeen oo xisbiga Mucaaradka Wadani ayaa isaguna bulshada ku dhiirigeliyay waa sidoo hadalka u dhigay inay isbedel dimuqraadiyadeed ay ka dhaliyaan dalkan Somaliland beesha Maxamuud Yoonis oo caawa muujisay taageeradeeda aan kala hadhka lahayn ee mugiya miisaan kale aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa Somaliland ha guulaysato Wadani ha guulaysto beesha Maxamuud Yoonis waxaan u rajaynaynaa guul gobonimo iyo horumar